Conversation wada sheekaysi. If you had money, haddii aad lacag heshid, what would you do? Maxaad ku samayn lahayd? If you had money, what would you do? Haddii aad lacag heshid, maxaad ku samayn lahayd? B baa uga jawaabaya wuxuu leeyahay I would marry, waxaan ku guursan lahaa the most beautiful girl, gabadha ugu quruxda badan in the village ee xaafadda. Gabadha ugu quruxda badan ee xaafadda ayaan ku guursan lahaa. I would build, waxaan ku dhisan lahaa large houses, guryo ballaaran ama guryo waaweyn. I would travel, waxaan ku safri lahaa all around the world, guud ahaan daafaha caalamka. And also, sidoo kalena, I would drink, waxaan ku cabi lahaa wine, khamri ayaan ku cabi lahaa. Wine, khamriga ayaa la yidhahdaa weliba midkiisa ugu daran. Eeba mar labaad qaadanaya hadalkii wuxuu leeyahay I beg from Allah, waxaan alle ka baryayaa. Ereyga beg waa baryid. Waxaan alle ka baryayaa not to give you, inuusan ku siinin 1 cent of money, 1 cent oo lacaga inuusan ku siinin. Because maxaa yeelay you are not good person, ma tihid qof wanaagsan. You are heretic person, waxaa tahay qof faasiq ah. Heretic waa qofka faasiq ah ee waxyaabaha xunxun sameeya. Don't curse me, ha habaarin ayuu leeyahay. Ereyga curse waa habaar. Curse waa habaar. Ha habaarin. What about you? Adiga iska waran bal. Maxaad samayn lahayd? Adiga iska waran buu yiri. Aniga ha habaarin, adiga iska waran. I would build, waxaan ku dhisi lahaa mosques, masaajido ayaan ku dhisi lahaa. And I would help, waxaan ku caawin lahaa the poor people, dadka wanaagsan ayaan ku caawin lahaa buu yiri. Aniga haddii aan lacag heli lahaa. Kii baa soo qaadanaya hadalku wuxuu leeyahay that's the right way, taasi waa habka saxda ah. And I will make, waxaana samayn doonaa like this, sida midkaas oo kale. You changed my wrong idea. You changed, waxaad bedeshay my wrong idea, fikirkaygii khaldana ayaad bedeshay. Thank you so much, aad ayaad u mahadsan tahay. Wuxuu yiri fikirkaygii waa isbedelay markii masaajid la dhisaa iyo waxyaabahaas u maqlay, fikirkiisii khaldana wuu bedelay. Conversationka qayb kale ayuu leeyahay. qaybta labaad ayaan hadan u gudagalaynaa. A iyo B waa hadana qof baa su'aal qof weydiinaya, qofkan uu uga jawaabaya. Wuxuu leeyahay different people, dadka kala duwan are learning English, waxay Englishka u baranayaan for many reasons, sababo fara badan. Reasons waa sababo. So sidaa darteed, and what is the reason? Maxay tahay sababta that you are learning English? aad Englishka u baranayso. Wuxuu yiri dadka kala duwan ee adduunka ku nool Englishka waxay u bartaan sababo kala duwan. Haddaba maxay tahay sababta aad adigu u baranaysid oo kugu kalifaysa maxay tahay? B baa ka jawaabay wuxuu leeyahay I am learning English, waxaan Englishka u baranayaa for many different reasons, sababo fara badan oo kala duwan. Such as sida to listen to international radio, in aan dhegaysto raadiyaasha caalamka ee Englishka ku baxa. To express my opinion, in aan aragtidayda ku caddeeyo. To express, in aan ku caddeeyo my opinion, aragtidayda iyo fikradayda in English, Englishaan in aan ku caddeeyo. maxaa yeelay Englishku waa luqad caalami ah oo wax walba aad English ku sheegtid dad badan oo wadamo kala jooga ayaad u caddeyn kartaa fikradaada. sababta kale waxay tahay to preach, inaan ku wacdiyo ama aan ku waaniyo the infidels, gaalada who don't know, kuwaasoo aanan aqoonin the existence, jiritaanka of Allah, alle who created them, kaasoo iyaga abuuray. That's why, taasina waa sababta I am learning English, aan u baranayo Englishka. Cajiib. intaas aynu ku egahay conversationkeennay. insha Allah course-kan halkaa buu nagu egahay. waadna mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.